السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان قيارتي توبان idin salaamay. Casharkana wuxuu ku saabsan yahay sidee computerkaaga logoga aad ugu celi kartaa. Computerka dadka qaar aad ayay waxay ugu sheegteen computerka markuu qofka soo shido waxa laga yaabaa inuu meel istaago. Meeshaasna oo istaagayo username iyo password kuma xirno, laakiin wuxuu ku leeyahay sida inuu user password ka rabo kale password geli oo kale passwordna ma ogid inaad gelinin, laakiin internet dhahdo wuu soconaa. marka sidee meeshaas aanu u istaagin aan ugu celi karnaa. marka way fududahay. waxaad tagaysaa start menu ayaad tagaysaa, kadibna waxaad ku qoraysaa run ayaad ku qoraysaa run ayaad ka dooranaysaa sorry run ayaad ka dooranaysaa kadib waxaad ku qoraysaa control ayaad ku qoraysaa meeshaas control space ayaa bixaysaa user passwords 2 ayaad ku markaad ku qortid controlka space ayaa bixaysaa user passwords kadibna waxaad leedahay okay ayaa leedahay. markii okay dhahdid sidaan ayuu kugu soo baxayaa. haddii meeshaas ay ka dhigtid unchecked macnaha waxa waaye user must enter username and password to use this computer waa unchecked. haddaa ka dhigtid oo apply ay dhahdid kadibna wuxuu iska dhahdid okay iska dhahdid kadibna okay dhahdid waxaad u jeedaa computerkaas markaad restart ku samaysid in uu istaageen logogaas oo meeshaas hadda ay meeshaan dadka badan oo ku istaago meeshaan dambe kaama istaagayo. dadka meeshaan aad ayay u dhibsadeen markuu meeshaan ka istaago computerka, marka waxay leeyihiin oo kale aniga password iguma xiro laakiin meeshaas muxuu iga istaagaa. sidaas ayaad ugu samayn kartaa. marka insha Allah biidnillahi kariim xitaa xarfaha meesha lagu qoray xitaa description-ka ayaa ida dhigayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh.